Videogan waxaan kaga hadlaynaa complementary event. Complementary events ama the complement of an event waxa weeyaan the set of outcomes in the sample space that are not included in the outcomes of event The complement of an event waxa weeyaan the set of outcomes weeyaan in the sample space that are not included in the outcomes of event marka a complement of an event waxa weeyaan waa set of outcomes oo ka mid ah sample spaceka laakiinse aanan ku jirin outcomeyaasha event marka saas ayaad u fahmaysiin a complement of an event waa a set of outcomes oo sample spaceka ku jira laakiinse aanan ka mid ahayn outcomeyaasha event marka waxaa la dhahaa the complement of event is denoted by e bar marka eda kor wax laga saara marka waana idin tusi doonaa e bar ayaa la dhahaa marka the rule for complementary events for example waxaa la rabaa haddaad rabtid inaad raadisid a complement of an event haddaad rabtid inaad raadisid oo la mid ah probability of e bar marka waxaad ku helaysaa waa 1 minus probability of 1 ayaa waxaad ka jaraysaa probability of sifa aad u heshid the probability of the complement of event marka haddaan idinku celiyo haddii aad rabtid inaad heshid probability of a complement of an event ama probability of bar waxaad ku helaysaa waa 1 minus probability of marka example ayaan qaadan doonaa sifa aad u fahantiin exampleka koobaad waxa weeyaan waxaan haysanaa waxaa lagu dhahay find the complement of each event yaashan soo socda waa inaan raadinaa complementigooda number 1 rolling a die and getting a 4 waa maxay a complement event u fiirso hadda laguma dhihin raadi find the probability raadi laguma dhihin laakiin hadda waxaa la rabaa inaad raadisid keliyata a complement of this event marka eventiga koobaad waxa weeyaan die inaad taraarixsid ood heshid getting a 4 waa maxay complementigeedu number 2 selecting a letter of the alphabet and getting a vowel marka getting a vowel waa maxay the complement event haddii aad leetayaasha alphabetka aad dooratid oo aad heshid getting a vowel waa maxay complementigeeda midka saddexaadna waxa weeyaan haddii selecting a month and getting a month that begins with a j marka waxaa la rabaa inaad raadisid complement of this event midda ugu dambeysana waxaa weeyaan selecting a day of the week and getting a weekday weekday waxa weeyaan waa monday ilaa iyo friday marka midka waa exampleka koobaad exampleka labaad waxaa lagu dhahay if the probability tan hadda markaa probability ayaa la raadinaya if the probability that a person lives in an industrialized country of the world is 1/5 find the probability that a person does not live in an industrialized country if baa lagu dhahay the probability that a person lives in an industrialized country of the world is 1/5 haddii probabilityga haddii qof la doorto inuu qofka uu ku nool yahay an industrialized country hadday tahay 1/5 raadi the probability that a person does not live in an industrialized country raadi probability that a person haddii la doorto inuunan ku noolayn an industrialized country in short waxa weeyaan find the complementary of this event
marka waxaan ka rabaa inaan raadino probability-ga haddii qof la doorto inuuna ku noolayn an industrialized city. marka waxaan isticmaalaynaa ruleka loo yaqaano ruleka hadda soo baranay. marka midkaas ayaan isticmaalaynaa. marka waxa weeyaan marka koobaad waxaan samaynaynaa L ba waxaan usoo gaabinaynaa L ayaa waxaan usoo gaabinaynaa L kan waxaan usoo gaabinaynaa eventiga inuu ku nool yahay industrialized city, ama E baan ka dhigno. E waa event lives in industrialized city. Industrialized country and all. marka tan waxay weeyaan haddii qof la doorto, if a person is selected, waxa weeyaan eventiga inuu ku nool yahay industrialized country. E baa oo saas loo qoro, E oo laba kor laga saarona waxa weeyaan event does not live in an industrialized country, inuu ku noolay macnaha industrialized country. marka waxaan ka rabaa inaan raadino ii sheegtid probability haddii qof la doorto inuuna ku noolayn probability of E ba, probability of event E ba. marka tan waxaan ku helaynaa waa 1 minus probability inuu ku nool yahay macnaha 1 minus probability event E. marka waxay noqonaysaa waa 1 minus probability of E na waana loo sheegay probability that a person lives in an industrialized country waa 1 out of 5. marka probability inuuna ku noolayn waxa weeyaan waa 1 minus 1 all over 5 oo ah 4 out of 5. marka probability hadda hadaad qof doortid qofkaas inuuna ku noolayn an industrialized country waxay noqonaysaa 4 out of 5. marka waxaan isticmaalnay rulekan for complementary events. marka rulekan waxa weeyaan rulekii complementary events. rulekaasna wuxuu sheegayaa saad soo baranay waxa weeyaan wuxuu sheegayaa probability of E ba waxaa lagu helaa waa 1 minus probability of event E. waa 1 minus probability of event E. marka E ba waxa weeyaan waa the complementary event to event E. waa eventiga dhici karta oo se ka duwan event E. marka sidaas ayaa lagu helaa. marka waxaa loo yaqaanaa complementary event. markaas soo fadlan hadda su'aalo qabtiin soo dhiga su'aalihiina accountiga ku leedahay channelkan uu ku leeyahay social media Facebook, Instagram, ama Telegram, ama Twitterka guddigoodba waxa weeyaan waan isku daynaa inaan idin kaga jawaabno su'aalihiina wixii faahfaahinna iyo wixii commentigiina inaan akhrinano waan diyaar baan nahay. marka share gareeya fadlan wixii su'aalana na soo weydiiya. mahadsanidin.